subaxnimadii hore sabtidii aynu soo dhaafnay adduunku wuxuu ku baraarugay dhaqdhaqaaq ciidan oo xooggan oo ka socda dalka Suudaan. ciidamada loo soo gaabiyo RSF ayaa si aan la saadaalinayn kula wareegay gacan ku haynta aeroboortkii diyaaradaha, xarunta TV-gii qaranka, gurigii martida iyo goobo kale oo xasaasi ah. tallaabooyinkan isxigay ayaa ka dhigtay ciidankii qalabka siday ee Suudaan kuwa hubka culus iyo diyaaradaha dagaalka u adeegsaday kooxdan. tallaabo laga cabsi qabo inay bilow u noqoto dagaal sokeeye oo ka qarxa dalkan saboolka ah. haddaba xagee ka bilowday khilaafku? maxay yihiin RSF? maxay ciidanka qalabka sida iyo kooxdani isku maandhaafsan yihiin? se maxay yihiin quwadaha iyo dalalka kala garab siinaya labadan ciidan? su'aalahan ayaynu ku lafaguri doonnaa muuqaalkeenna maanta. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waberi Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. si aynu fahan guud uga qaadanno waxa ka socda dalka Suudaan, aynu marka hore eegno awoodaha isku haya dalkan. dagaalka haatan socda ayaa u dhaxeeya laba garab. garabka koobaad ayaa ah ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan. ciidamadan ayaa ah ciidamo si rasmi ah u hoostaga taliska sare ee dalkaasi, kana amar qaata madaxweynaha haatan talada haya Cabdifataax al-Burhaan. halka garabka labaad uu yahay ciidanka loo soo gaabiyo RSF oo ah ciidan markoodii hore ahaa maleeshiyaad aan cidna hoos tegin. nin lagu magacaabo Maxamed Xamdaan Xameti, ninkan ayaa isaguna ah hogaamiyaha labaad ee ugu sareeya dalka Suudaan xilligan. sanadkii 2003 maleeshiyaadkan ayaa ka dagaalamayay gobolka Darfur, waxayna ku dagaalamayeen magaca dowladda Suudaan ee uu garwadeenka ka ahaa Cumar al-Bashir. ka hor intaan sanadkii 2013 si rasmi ah loo hoosgeyn taliska ciidanka iyo sirdoonka dalka Suudaan. ciidankan ayaa waxaa hogaamiya ninkan la yiraahdo Maxamed Xamdaan Xameti, waxayna ka kooban yihiin ku dhowaad 100,000 oo askari oo ku gaashaaman hub fudud, waxayna leeyihiin ilaa 10,000 oo gawaadhida dagaalka ah. ciidankan ayaa leh shirkadahooda u gaarka ah oo ay ka sameeyaan dhaqaale. marka laga yimaado dhaqaalaha ay dowladda ka helaan, waxayna si weyn u soo shacbixeen wixii ka dambeeyay xukuumaddii Cumar al-Bashir. Xameti oo ah taliyaha ciidanka ayaa ahaa geeljire ka ganacsada geela una iibgeeya dalalka Liibiya, Maali iyo Chad. wuxuuna markiisii ugu horeysay qaatay hub oo uu dagaal galay kadib markii ay rag jidgooyo ku sameeyeen ganacsi uu lahaa qabiilkiisu. waxayna raggan jidgooyada dhigtay dileen ku dhowaad 60 qof oo ka tirsanaa qoyska Xameti. raggan ayaa sidoo kale dhacay geelii u rarnaa qoyska Xameti. dhacdadan ayaa caro iyo boog ku abuurtay Xameti oo go'aan ku gaaray inuu diyaarsado 5,000 oo dagaalyahan oo ku hubaysan saanad iyo 1,000 gaari. wuxuuna Xameti ahaa odayga ama hogaamiyaha qabiilka. Xameti iyo ciidankiisii ayaa galay duurka. muddo kadib waxay noqdeen maleeshiyo dowladda mushaar ka qaata, dowladduna ay uga faa'iidaysato gobolka Darfur oo ay dagaallo sokeeye ka socdeen xilligaasi. waxay mushaar qaataanba oo ay magaca dowladda ku dagaalamaan. maleeshiyadan ayaa gadood samaysay kadib markii ay mushaarkoodii waayeen 6 bilood oo isku xigtay. waa la xalliyey tabashadoodii, balse mar kale ayuu Xameti gadoodkii hore ka weyn sameeyey kadib markii Cumar al-Bashir uu u magacaabay la taliye nin la oran jiray Mini Minawi. magacaabidda ninkan oo ka soo jeeda qabiil la yiraahdo Zagwa ayaa caro ku beertay Xameti, wuxuuna la goostay 70 gaari oo gaashaaman. xukuumaddii Cumar al-Bashir ayaa si ay u raaligeliso Xameti waxay go'aansatay inay u dalacsiiso sareeye guuto, wuxuuna sidaasi ku noqday geeljirihii maleeshiyaadka hogaaminayay. sarkaal ciidan oo ka mid ah saraakiisha ugu darajada sareysa ciidanka Suudaan. ciidankii Xameti oo loo bixiyey RSF ayaa maalinba maalinta ka dambaysa noqonayay kuwo sii xoogaysanayay, tiradooduna ay si xawli ah ku kordhaysay. wuxuu door weyn ku lahaa dagaalkii sokeeye ee ka socday gobolka Darfur, wuxuuna gacanta ku dhigay godadkii dahabka laga qodi jiray ee Darfur, taasi oo sii siyaadisay awoodda ninkan, gacantana u gelisay hanti ka dhigtay maalqabeen. Xameti kuma joogsan gacan ku dhigidda godadka dahabka laga soo saaro iyo samaysashada ciidan xooggan, balse wuxuu uga sii gudbay inuu saameyn qoto dheer ku yeesho mu'asasooyinka dowladda. Xameti ayaa dowlad iyo shabakad isaga raacsan ka hoos samaystay dowladda Suudaan. wuxuu howlgeliyey ku dhowaad 5 ilaa 8,000 oo shaqaale rayid ah oo uu ka shaqaalaysiiyey hay-ado iyo shirkado kala duwan oo isugu jira kuwo dowladeed, kuwo gaar loo leeyahay, kuwo uu isagu si gaar ah u leeyahay, iyo hay-ado warbaahineed. wuxuuna leeyahay unugu warbaahineed oo aad u xooggan oo ay hawshiisu tahay inuu ka gado Xameti shacabka Suudaan.
khilaafkan hadda taagan ayaa markiisii ugu horeysay soo shacbaxay markii uu taliyaha RSF Maxamed Xamdaan Xameti uu sheegay in tan iyo 2021 uu dareensanaa in go'aamadii taliska ciidanku uu ku kala dirayay xukuumaddii madaniga ahayd ee ka jirtay dalkaasi ay ahayd tallaabo uu ciidanku ku damacsan yahay inuu dib u soo celiyo nidaamkii Cumar al-Bashir. khilaafkan iyo xiisadan ayaa sii xoogaysatay kadib markii qalinka lagu duugay oo la saxiixay heshiiska guud ee lagu hagayo xilliga kala guurka ah ee u dhaxeeya ciidamada dalka oo isugu jira RSF iyo ciidanka qalabka sida. heshiiskan oo la saxiixay bishii 12aad ee aynu ka soo gudubnay ayaa dhigayay in ciidanku ay isaga baxaan farakuhaynta siyaasadda lana soo dhiso xukuumad madani ah. sidoo kale heshiiskan ayaa waxaa ku jiray qodob dhigaya in la isku dhafo ciidamada qalabka sida iyo ciidanka RSF, wuxuuna soo jeediyey ciidanka qalabka sida in la sameeyo hal talis oo ay ciidamadu ka wada amar qaataan. shirkadihii hoostegayay RSF-na waxay soo jeediyeen in la hoosgeeyo wasaaradda maaliyadda lagana bixiyo gacanta ciidanka RSF. sidoo kalena taliska ciidanku uu yahay kan go'aaminaya dhaqdhaqaaqa iyo howlgelinta ciidamada. taliyaha ciidanka RSF Xameti ayaa ku eedeeyay saraakiisha ciidanka qalabka sida inay qorsheenayaan inay xukunka sii joogaan. wuxuu sheegay inuu taageersan yahay fikradda ah in la isku dhafo ciidamada dalka la isuguna geeyo hal talis, laakiin wuxuu raaciyay in laga maarmaan ay tahay in la isku waafaqo muddada ay qaadanayso tallaabadaasi oo ay labada dhinac ku kala aragti duwan yihiin. sidoo kale wuxuu shardi ka dhigay in saraakiisha ciidanka RSF lala siimo darajo ahaan saraakiisha ciidanka qalabka sida. xiisadda ayaa ka gudubtay miiska wadahadalka iskuna beddeshay iska horimaad ciidan kadib markii ay ciidanka RSF abaabul ka bilaabeen gobolka Marwe ee ku yaala waqooyiga Suudaan, waxayna halkaasi isugu geeyeen koox ka tirsan ciidankoodii iyo gawaadhidoodii dagaalka. tallaabadan ayaa caragelisay ciidanka qalabka sida ee dalka Suudaan, kaasi oo ku eedeeyay in RSF ay qaaday tallaabo uusan taliska ciidanku amar u siin laguna soo wargelin. gulufkii dagaal ee labada dhinac u dhaxeeyay ayaa si xawaare sare leh isugu beddelay dagaal toos ah oo sabtidii ku dhex maray labada ciidan caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum iyo deegaanada ku hareeraysan. ciidanka qalabka sida ayaa ku eedeeyay RSF inay dagaalka bilowday duulaanna ku qaaday saldhig ciidanku ku leeyahay koonfurta magaalada caasimadda ah ee Khartoum, halka RSF ay iska fogeysay inay iyadu dagaalka bilowday kuna eedeysay ciidamada qalabka sida inay iyagu dagaalka ku horeeyeen. iska horimaadyadii ayaa sii xoogaystay. ciidamada RSF ayaa sheegay bilowgii dagaalkaba inay gacanta ku dhigeen gagooyinkii diyaaradaha, TV-gii qaranka, gurigii martida iyo goobihii kale ee muhiimka ahaa ee dalka, halka ciidanka qalabka sida ay beeniyeen in lagala wareegay goobahan iyagoo sheegay inay duqaymo xoogan u geysteen fariisimihii RSF. haddii aynu eegno xulafada labada dhinac, dalka ay daris wadaagga yihiin Suudaan ee Masar inkasta oo uu ilaa hadda door weyn ka ciyaarayo sidii uu u dhexdhexaadin lahaa labada dhinac isuguna muujin lahaa daraf ka caagan la jirsashada cid gaar ah, haddana dadka falanqeeya xaaladda Suudaan ayaa Masar ku tilmaamay inay u janjeerto ciidanka qalabka sida. dalalka khaliijka gaar ahaanna dalka Imaaraadka ayaa garab weyn u ah ciidanka RSF. Imaaraadka ayaa xiriir dhow la leh taliyaha ciidanka RSF ee Maxamed Xamdaan Xameti. wargeyska Middle East ayaa xusay in Imaaraadka looga dhoofiyo dalka Suudaan sanad kasta dahab u dhigma ku dhowaad 16 bilyan oo dollar. sida aynu soo sheegnayna, Xameti ayaa gacanta ku haya godadka ugu badan ee laga soo saaro dahabka Suudaan ee dhaca gobolka Darfur. sidoo kale Xameti ayaa door weyn ka ciyaaray inuu ciidamo calooshoodu shaqaystayaal ah uu ka raro Suudaan geeyana dalalka Liibiya iyo Yemen si ay garab ugu fidiyaan dagaalka uu Imaaraadka kula jiro Xuutiyiinta iyo xiftarka Liibiya oo isna garab weyn ka haysta Imaaraadka. Ruushka oo isaguna eeganaya masaalixdiisa ganacsi, dahabka uu ka dhoofsado Suudaan iyo sidoo kale qamadiga oo u suuq keeno dalkaasi ayaa iyaguna garab u ah ciidanka RSF. ciidamada Wagner ee uu leeyahay Ruushku ayuu xiriir qoto dheer kala dhaxeeya Xameti, wuxuuna Xameti booqasho ku tegay Ruushka xilligii uu bilowga ahaa dagaalka Ukraine. dagaalka dalkan ka socda ayaa galay maalintiisii saddexaad, waxaana laga cabsi qabaa inuu dagaal sokeeye oo dalkaasi ragaadiya uu isku bedelo marka la eego darafyada labada dhinac la kala safan.